السلام عليكم ظهور wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee Radio Afrika qodobada warka aad ku dhageysan doontaan maanta waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qudbad ka jeediyay fadhiga gaarka ah ee arrimaha geeska Afrika dowlada Soomaaliya oo amar culus dul dhigtay diyaaradaha duulimaadka ku taga magaalada Kismaayo xilka qaadis lagu sameeyay agaasimihii wasaaradda ganacsiga Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay maamulka ahlusunna iyo dowladda Soomaaliya madaxweyne waare oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan booliska maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo dib u eegista dastuurka dalka siyaasiga Cabdirashiid Macalin Gaas oo sheegay in magaalada Kismaayo ay xoog ku haystaan Axmed Madoobe iyo Kenya wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle oo maanta gaaray degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan Uganda Airlines oo duulimaad toos ah ka bilowday magaalada Muqdisho wararka dibadda waxa dhageysan doontaan maleeshiyad waysan oo kalluumaysato ku laaya dalka Mozambique iyo dowladda Brazil oo shir isugu yeertay dowladaha gobolka dalkaasi soo gudbinta warka doornimo idaacadda Afrika waxa suura gelisay warshada isbuunyada Shaakir isbuunyo sharafteeda u doono warshada isbuunyada ee Shaakir waa duhurnimo khamiis ah taariikhda waxa ay ku aasteysan tahay 29 bisha 8 2019 ku soo dhawaada warka duhurnimo oo faahfaahsan